madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo booqanaya jiidaha hore ee dagaalka gobolka Sool waliba wuxuu tagi doonaa halka ay isku hor fadhiyaan ciidanka difaaca waqooyi bari iyo kuwa Somaliland waa tuulada Guumeyse waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa laba diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kacaya tan iyo saaka ilaa xalay dul heehaabaya dusha sare ee magaalada Laascaanood waxay si gaar ah u ilaalinayaan guriga uu degan yahay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba labadan diyaaradood ma waxa si gaar ah u leh dawladda Soomaaliya faahfaahinta ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale aan ku soo gudbin doono waxa qayb ka noqon doona boqolaal gaadiidka dagaalka ah oo ay leedahay Somaliland oo ku soo jeeda gobolka Sool ma waxay rabaan inay weeraraan Laascaano inta uu magaaladaasi ku sugan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud macluumaad ayaan ku hayaa qodobadaas iyo waxyaabihii kale ee nagu soo kordha ayaan saaxiibayaal idin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada haddii taa markii kugu horeysay ku soo biiri daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno ee soo dhawow daawade maalin wanaagsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ku hoyday magaalada Laascaanood ayaa waxa uu sheegay ila ku dhow sida ay tilmaamayaan in uu tagi doono jiidaha hore ee dagaalka gobolka Sool waliba meesha ay isku hor fadhiyaan ciidanka Somaliland iyo kuwa sidoo kale dawlad goboleedka waqooyi bari waa halka la yiraahdo Guumeys halka ciidanka Somaliland iyana ay joogaan tuulada la yiraahdo Og tan hadii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sameeyo waxay ka dhigan tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu wax yar u jirsaday halkii ay joogeen ciidanka Somaliland ee ah magaalada Og waliba Guumeys iyo Og waxay isku jiraan sida aan qiyaasayo 37 kiiloomitir ilaa 34 kiiloomitir Xasan Sheekh Maxamuud koor inta uusan tagin jiidaha waxa ka horeyn doona ciidamada sida gaarka u tababaran ee BSF ciidanka danab ee Jimcaale Jaamac Takar uu hogaamiyo iyo sidoo kale ciidamo haram cad ah oo laba diyaaradood lagu geeyay magaalada Laascaanood dabcan sida ay tilmaamayaan xogaha wararka iyo macluumaadka la helayo tan waa istiraatiijiyad looga gol leeyahay in lagu cadaadiyo Cabdiraxmaan Cirro inuu ka laabto heshiiskii uu la galay Israa'iil Xasan Sheekh Maxamuud xalay oo dhan kulamo ayuu ka waday magaalada Laascaano wuxuu la kulmay inta badan saraakiil xigeenada ciidanka maamulka waqooyi bari waxa looga warbixiyay xaalku siduu yahay bilow ilaa dhamaad madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu xog wareystay saraakiishii uu la kulmay isagoo u sheegay in dawladda Soomaaliya ay mushaaraad gaar ah u qori doonto ciidanka waqooyi bari isla markaana ay ka mid noqon doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dadka ka faalooda arrimahan ama dadka sida dhow ula socday dhismaha maamulka waqooyi bari bilow ilaa dhamaad waxay leeyihiin xilligan la joogo maamulka waqooyi bari ma jiro waxa uu uga baahi badan yahay in mushaar la siiyo ciidanka waqooyi bari aan kuugu daro maamulka waqooyi bari waa maamulka ugu ciidanka badan dhulbahante ka soo bilow ilaa warsangeli oo wax isku darsaday waqooyi barina maamulka loo bixiyay dad badan waxay aaminsan yihiin in uu yahay maamulka ugu ciidanka badan waana ciidamo daacad u ah iyagoo aan muddo mushaar qaadan ayay saas u dagaalamayeen Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale wuxuu booqan doonaa tuulada Shimbiraale oo ah saldhigga ugu weyn ee lagu tababaro ciidanka waqooyi bari wuxuuna tababar u soo xiri doonaa cutubyo ka mid ah ciidanka waqooyi bari wuxuu sidoo kale booqan doonaa magaalada Ari Cadeeye oo ay degan yihiin beesha Habargidir Fiqishini wuxuuna dabcan la kulmi doonaa odayaasha dhaqanka beesha Fiqishini wuxuu sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud booqan doonaa laba saldhig oo ku yaala Gooja Cadde iyo sidoo kale aaga Salinta waliba Gooja Cadde ayaa la leeyahay uu ku hormari doonaa oo halkaas ayuu dabcan ku sugnaan doonaa saacado isagoo la kulmi doona ciidanka Soomaali oo ciidankii waqooyi bari ee halkaas ku sugnaa sidoo kale wuxuu soo indhoon doonaa xadka iyo baaxadda ay maamulka waqooyi bari hadda haystaan marka laga hadlayo gobolka Sool dabcan waxaan oo dhan waxay u dhacayaan waa aqoonsigii Israa'iil ay siisay Somaliland kadib Xasan Sheekh Maxamuud mar uu kol hore la hadlayay xildhibaanada Somaliland ee waqooyiga ee ka soo jeeda magaalada Muqdisho lagu soo doorto doorashadooda ee laakiin Somaliland ka soo jeeda wuxuu u sheegay in Cabdiraxmaan Cirro ballantii uu uga baxay oo uusan aadi lahayn Laascaano laakiin hadda ficilka uu sameeyay ay ahayd mid fool xun oo laga gaabsan karay isla markaana dharbaxa ku ahayd maamulkan curdunka ah ee saldhigiisu yahay magaalada Laascaanood Xasan Sheekh Maxamuud
wuxuu sidoo kale kulamo la qaadan doonaa garaadada maamulka waqooyi bari wuxuu la kulmi doonaa abwaan cabdirashiid jibriil wuxuu la kulmi doonaa sida ay wararku tilmaamayaan garaad jaamac garaad cali kulamadu waa ay badnaan doonaan ka hor xafladda caleemasaarka cabdiqaadir firdhiye dabcan waxyaabo badan oo masiirka iyo mustaqbalka maamulka waqooyi bari taabanaya ayaa dabcan laga hadli doonaa oo weliba la dhiraandhirin doonaa iyadoo oo ugu dambayna lasoo saari doono dabcan warmurtiyeed marka ay dhinacyadu heshiiyaan ama wax laysku afgarto xafladda caleemasaarka kadib ayuu waxaasoo dhan madaxweyne xasan sheekh maxamuud samayn doonaa sababtoo ah berri waa xafladda caleemasaarka inta ka horeysana amniga ayaa si weyn loo adkeeyey oo si aan idiin sheegay guriga uu xasan sheekh degan yahay iyo guriga uu ra-iisul wasaaruhu degan yahay iyo martida kale guryahay degan yihiin oo dhan diyaarada ayaa dharaar iyo habeen dusha kala socda halka gudahana ay ciidanka BSF iyo ciidanka danab ay ilaalin doonaan amniga madaxweynaha ra-iisul wasaaraha taliyaha booliiska iyo wasiirada kale ee fiqina uu ku jiro khubro badan oo arrimaha la socota waxay leeyihiin waa tallaabo inaba aan caadi ahayn oo ay ku tallaabsatay maamulka waqooyi bari loogana baahan yahay dadka deegaanka in ay xajistaan oo ay ilaashadaan dhismahooda xasan sheekh maxamuudna ay ka faa'iidaystaan inta uu la joogo oo ay runta u sheegaan baahiyaha ay qabaan ay farta ku fiiqaan si markaasi xasan sheekh maxamuud uu wax uga qabto waxay ku soo kordha saaxiibayaal tegitaanka xasan sheekh ee gooja cadde iyo deegaanada hoos yimaada wararkeena dambe ayaan idinkugu soo tabin doonaa weliba dadka ugu horeeya ee la socda ayaad noqon doontaan haddii alla hawudalow raalli ka noqdo markana somalilan boqolaal ciidamo ah oo ah kuwa gaashaaman iyo oo markaasi cabdibilayaalna ay ku jiraan ayaa la soo warinayaa in somalilan ay soo buux dhaafisay gobolada sool iyo sanaag mar walba ciidanka waqooyi bari iyo sidoo kale ciidanka somalilanna waxay qarka u saaran yihiin inay wada dagaalamaan oo ay gooda isdaraan haddii aan xal degdega hadda la helin siday wax ku socdaan taliyaha guud ee ciidanka militariga jamhuuriyadda somalilan nimcaan gaaxnuug ayaa la soo warinayaa in uu isku dubiriday dhammaan ciidanka somalilan ee ku sugan gobolka sool gobolka sanaag ilaa gobolka cayn nimcaan gaaxnuug oo amar guud ka haysta madaxweynaha somalilan ayaa la soo warinayaa in uu qaatay go'aan ah in dagaal la aado oo aanan cidna indhaha laga daboolan isagoo sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dabcan ku soo xadgudbay waa sida uu sheegay qarannimadii iyo madax bannaanidii jamhuuriyadda somalilan sargaal sare oo ka tirsan somalilan ayaa warbaahinta gudaha goordhow wuxuu u sheegay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada tirabeelka ah oo ciidanka somalilan ay aagaasi ka wadaan waqooyi bari waxay tilmaameen in iyagu xilligan aysan dagaal qaadeen laakiin haddii lagu kallifo oo xabad lagu soo rigo aysan gacmaha laaban doonin iyana xabad ay ku jawaabi doonaan taas oo dabcan loo arko inay tahay falsafad uu hadda ka hor isticmaalay cabdiqaadir firdhiye isagoo u sheegay haddii lagu soo xadgudbo qiyamkooda sharaftooda iyo haybadooda dhulkoodana lagu soo daandaansaday in ay jawaabaan oo ay xabad madaxa ka geliyaan ama xabad madaxa ay kaga toogtaan cid walba oo danahooda markaasi carqaladeynaysa hadda markaad eegtid gaadiidkan tirabeelka ah oo somalilan ay ku daabulayso gobolka sool gobolka sanaag ilaa gobolka cayn waa gaadiid gaashaaman oo aan la ogeyn waxa ku jira waxaa ka horeeya cabdibilayaal xilli habeen ah ayay soconayaan mararka qaar dhufweysyo badan oo ciidanka somalilan ay joogeen ayay ka soo tallaabeen kaamirooyinka soomaalida inta badan waa laga qariyey laakiin ugu dambeyn somalilan ayaaba soo bandhigtay in gaadiidkan ay yihiin kuwo lagu xoojinayo ciidanka difaaca ee halkaasi ku sugnaa taasoo dabcan loo arka inay tahay falsafad cajiib ah oo uu isticmaalayo cabdiraxmaan ciro oo uu doonayo in uu ugu yaraan uu qalqalgeliyo amniga iyo xasiloonida halkaasi ka jirta saraakiisha aan la hadalnay sidoo kale waxay leeyihiin toddobaadyadii lasoo dhaafay culaysyo weyn ayaa jiray oo dhanka amniga ah oo la xidhiira in dagaallo laga cabsi qaba inay halkaasi ka dhacaan sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadkaan helena si walbaba ha ahaatee marba marka ka dambaysa waxaa isu soo taraya dhacdooyinno la xidhiira in dagaalla halkaasi ay ka dhacaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud intuu ku sugan yahay dabcan amnigiisa iyo ciidamo uu watay ciidamaha kasii horreeyey maleeshiya beeleedyadii hubka iska watay dabcan magaalada waa laga saaray sidii ay wararku tilmaamayaan xasilooni iyo amni ayaa ka jira laascaano waxaana la filaya xasan sheekh maxamuud inuu booqdo sidaan idiin sheegay deegaano ku yaala gobolka sool somalilanna dabcan isha ayay ku haysaa
guud ahaan saaxiibayaal wararkeen intaas ay ku dhan yihiin hadday tahay markii kugu horeysay kusoo biri daraja media waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacno aragtidaada qaybta comment kaga dhiibo sidee u aragtaa booqashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee laascaano soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leeyahay sharaf iyo karaamo soo dhawaada mar kale